ayaan uga mahadcelinaynaa oo noo suuro geliyey inaan maanta ku sugannahay degmada Cali Guduud oo muddo dheer ay ka talinayeen ama ku amar taagleynayeen ummadda ku nooleeday nimanka khawaarijta ahay al-shabaab. ilaahay ayaan uga mahadcelinaynaa marka koobaad. marka labaadna cid kasta gacan ka geysatay oo ugu horeeyaan ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan waa uga mahadcelinaynaa dadaalka iyo wanaagga aad muujiseen. ilaahay idinka abaalmariyo ayaan leeyahay. runtii nimanka nabadiidka khawaarijta dalka Soomaaliya dhibaato badan ay ka geysteen, hadday tahay cibaadadii iyo hadday tahay ummadii nolosheedii meel waliba hor istaageen. waxaad arkayseen dhibaatada ay u geysteen dadka shacabka ay ku dhameynayeen qaraxyada. waxaad arkayseen raadadka ka muuqdo oo xumaanta oo deegaankan ay ka geysteen. indhihiina aad ku arkayseen gaadiidka meeshan ku guban, gaadiid dad masaakiin ay lahaayeen ay dab qabadsiiyeen. waxaad arkayseen masaajid loogu talagalay in lagu cibaadaystay u bedeleen dukaaman iyo jibiyeen ay dukaaman ka dhigeen. waa beyd ilaahay oo loogu talagalay in lagu cibaadaysto. waxay ku tusaysaa inayna diin wadin ay yihiin koox isu timiday oo gaangisa oo ummadan inay nolosha ku cadaabaan go'aansaday inay yihiin caddayn u tahay. haddii masaajidkii dukaan ay u bedeleen ay ku ganacsanayeen ayagu, hadday gaadiidkii dadka masaakiin ay lahayn ay ku shaqaysaayeen ay dab qabadsiiyeen, hadday gabdhihii masaafurka ahaa waddada ku socday in dejiyaan ay ku faraxumaynayaan saldhig inay ku leexiyaan, maxay ku tusee meeshaas wax diin la yiraahdo iyo wax dadnimo damiirka dadka dhintay waayay. wax samay karana ma jiraan dhaqanka ay sameynayeen nimankaanu. ilaahay ayaa mahadaas iska leh oo maanta suuro geliyey in dhibaatadii ay muddada dheer ku haayeen laga dulqaado. waxaan rabaa inaan ugu baaqo dadka deegaankan ku nool, nimankaanu noloshii idinkala hereen, horumarka hadday waxbarasho tahay la hereen, hadday caafimaad tahay la hereen. xoolihiinna waxay gaareen inay bil waliba seke aan jirin ay idinka qaadaan. inay waxay gaareen dadki qof canshuur ugu qoraan ay yidhaaheen qof heblo intaasoo cunuga u joogtaa waa inay intaasoo xoola ay keenaan. waa inay waxay gaareen dadka masaakiinta ee aan xoolahooda seke ka goyn, hadday 2 neef wataan neef ku fiican ama 3 wataan neef ku fiican inay ka qaataan ay gaareen. 2 loor badar qoftii wato inay loor ka qaataan ay gaareen. inay dadkii bil kasta ay maaragtay ka qaadaan dhaqaalo ay ummadan ku dhibaatayaan inay gaareen. waxaan rabaa inaan ugu baaqo dadka deegaankan ku nool, ilmihiinni ayay maaragtay qarax ku xireen iyagoo quraanka idin baray ama iskoolaadka idin dhigaay ka wadeen ay yiraahdeen hees qarxiyaano dagaal in geenay ku baabeen asaa qaarkood iyagoo ay maaragtay nolol iyo geeri midna aan lagu haynin. maanta kadib xor idin waay ilmihiinnu waxay idin bartaano, hadday tahay maadi iyo hadday diini tahay labadaba idin bartaano. deegaankiina nabad waay ku soo noqdaan leenahay. hadday tahay sakadii beentahay la idinka qaadi jiray, saka sida ilaahay ugu talagalay u bixi doontiin. ciddii xaq u lahayd ayaadna sii doontiin haddii ilaahay raalli ka noqdo. saka la idinka boobaa iyo xoolo la boobaa saka beena la idinka qaadana ma jiri doonto. waxaan rabaa inaan si gaar uga hadlo nin in muddo dheer ku amar taagleynaya dadkan masaakiinta ee Cabdullaahi Cali Caray dadku u yaqaaneen, laakiin dadka deegaanka ay sheegeen in la yiraahdo Cabdullaahi Laaluush qaati ugu weynay ee qarnigan uu noqday. wuxuu gaaray dadkiisa oo maaragtay ahalkiisa inuu 20 qof ama 30 qofood hal la wado ee lagu xiro aadan yabaal. kadibna odayaasha inuu yeeray anaa soo deynaa $500 keena oo yiraahdo gaaray. ummadana waxay u bixisay Laaluush qaati qarniga Cabdullaahi Cali Caray. xaqiiqadu wuxuu dadkan ku sameeyay adduunkana waa u taala, aakhirana waa ugu horeysa. waxaa la ii sheegay dad masaakiina oo maaragtay ilmo yatiim ah waalidkooda dhinteen inuu tahay xoolahooda iska soo watay. wuxuu iska indha tiray ahalnimadii uu ilaabay. wuxuu iska indha tiray aayadii quraanka aheeday innal ladina yaakuluuna amwaala al-yataama dhulman inma yaakuluuna fi budunihim naaran wa sayaslawna saciira. aakhiran aayadaas kaaga horeyso xooli agoontood cuntay adduunkana laga hirma. Cabdullaahiyow dadku deegaankana waxay sheegeen in lagu yiraahdo Laaluush qaati qarniga. ninkii Laaluush uu banay dadkan masaakiinta ka qaadaatay dib dambana ummadan waxaan rajaynayaa inaan wajigooda u imaan doonin. ilaahay idinkiisa adduunkana waa laga gooyaha, aakhirana waa laga gooynayaa. oo khaladaadkii aad gashay ummadda dhibaatada u geysaa kaaga horeyso. waxaan ugu baaqayaa dadka degmada Cali Guduud inay guryahooda ku soo noqdaan, nabadgelyo ku noolaadaan. qof wax loo dhimaayo ma jirto. ninkii shabaab waa la iska dhicinayaa. ninkii shacabka gurigiisa ha yimaado, nabad ha ku shaqeysto, beertiisa ha tacbado, xoolihiisana ha ilaashado, ilmihiisana quraanka u dirsado. cid qarax uga xiraysa ama cid dagaal uga diraysana ma jirtee. si nabadgelyo wax u bartaano. sekada beenta la idinka qaadi jiray bil walbana mid qabiilna la idin saari maayo, mid qofeedna la idinka qaadi maayo.
ilaahay wixii uu jideeyey iyo sidaad u bixi jirteen aad isaga bixaysiin laakiin shabaab idin xoog ma maanta kadib aad iyo aad u mahadsantihiin ballantaynu waa inta dhiman shabaab waa jabiyey meel walba lagu galana meydkooda daadsan shala u dambaysa iyo xalay garas magan iyo meesha la yiraahdo dagaalkii ka dhacay ilaa 150 qawaarijtii haa jidka taalle ciidamada ka dagaalamaayo guud ahaan dalka Soomaaliya gaar ahaan Hirshabeellana runtii waxaan leeyahay waa mahadsantihiin waxaan ayagana u mahad celinayaa raggi fashiliyay qaraxii saaka dhagarta ay maleegayeen raggi fashiliyana waa mahadsantihiin ayaan leeyahay ballantaynu waa dalka qawaarijta laga saaro ummadda way baraarugtay culumadina diiniyan ayay ummadda wuxuu u sheegaan waxay wadaan inay diin ayna ahayn been yihiin ay ummadda dhibaataynayaan ay sheegayaan waxaa loo diiday dhaqaalihii ay qaadan jireen nimankaas way fashilmeen military ahaanna waa u baaba'een oo waa u jeedin goob kasta looga adkaade inta dhiman ha lagu dhiirado aan dhamaystirno ballantaynana waa shabaab oo dalka laga saaro aad iyo aad u mahadsantihiin